يا من أرسيت مراسينا وبعثت بنورك ياسينا أيلوذ بغيرك عاصينا لك يا الله. قد حل وباء أرقنا ورفعنا الأمر لخالقنا فهنا وهناك يلاحقنا فدعونا الله. يتلاشى الهم وينحصر ومخالب تقوى وتنكسر والفرج سيأتي. waxaan u gudbi doonaa sheekheena sheekh Iimaan Haashimi oo mowduuciisu yahay noloshii iyo taariikhdii علي ابن طالب. markaasaan uga bixi doonaa suudow fadlan. ما صنت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. أدب ما صنت هاي أدنى وحنا نقوم هذا علينا ولا لها سيد قيمة بدن ونعكسن وقصوا الشيء كي أصحابته مركز أصحابته لقوا ورميو ما كلا حرانون بني ككله أيو سي حوجينيا مركز أدب بدكم هذا سنتي جزاكم الله خير. وحن كهل الدونا بإذن الله تعالى علي بن أبي طالب وأصحابي شرف يقدرين سره كل إسلامك النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي هاي المعذر ولا رنك ربو هوها نيكي دليرتا وجهر مسلمين يعني دليرهان ما كلا إيجو شباب المسلمين نيكي مسلمي بوها هدي إنه إيجنو نسب كيسة إيو أفترسين تيسة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويسكو دوايين وواحد كل مجرين بنو هاشم بكل مجرين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب وحو مسلمي أسيقو آدو داير أو دليرة صوبته كل مسلمين وحويان معلن بو النبي محمد صلى الله عليه وسلم قولي جيسو سوق علي وحو أركي النبي محمد يحاس كيسا خديجة أو تكنية مركز صلاة دي لما يستيب بكوري واحد سميني سوامح مركز يقول إلهي بأنه أيانو تكنينا سبحانه وتعالى مركز هالكاسو إلهي سبحانه وتعالى وافجي دين الإسلام كينو سوق على ساسو نكون مسلمي أصور دليرة إلهي سبحانه وتعالى علي وحيابها فضائشة وسيي وحكمد إنه إلهي سبحانه وتعالى وافجيه إنه جورسده إنن كمده رسولك عليه الصلاة والسلام قبله ودلي أو شرف الهيد أو السيدات الجنة نقول كرتبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء بو جورسدي marka qisayro طريفه jirta oo nabi maxamed عليه الصلاه والسلام marka uu gabadha siinay ama uu inantiisa siinay wuxuu ku yiri cali maxaad haysataa gabadha ku guursanaysa markaas uu yiri rasuulullah ma haysto markaas uu ku yiri miyaad ilowda diracaagi dagaalka aad ku galeysay kaaba keen kii dagaalku keenay sidaas uu nabi maxamed عليه الصلاه والسلام gabadhiisa ku siiyay ama inantiisa ku siiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka siiyay laba inan oo xasan iyo xuseen la yiraahdo sharaf leh oo noqon kara sayida ahli shabaab aljanna dhaliyarta madaxdooda ee jannada ma kala gala oo nabi maxamed عليه الصلاه والسلام aad u jeclaa oo maaragtay aad ugu soo dhawaan jireen hatta waqtiga salaadu nabigu tukan jiray عليه الصلاه والسلام oo tujin jiray asxaabta ku soo dhawaan jiray oo marmarka qaar asagoo salaada tukanay nabi maxamed markuu sujuudo ay dusha ka fuuli jireen marka dad barakaysan reer barakaysan bay haayeen علي بن أبي طالب wuxuu ahaa dhalinyarta muslimiinta rag ugu xoog weynaa ee dagaalo badan galay oo soo jihaaday ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku adkeeyay diinta maadaama aan ka soo sheekeynay Umar iyo Uthman علينا wuxuu noqonayaa khulafaa ar-raashidiin ninkii afraad buu noqonayaa Abu Bakar baa u horeeya Umar baa ku xiga Uthman baa ku xiga Ali baa u dambeeya afartaa weeyaan marka Ali waqtigiisii wuxuu fitna badan baa jirtay xilka markii loo diibay xataa waa u diiday muslimiintii baa isugu yimid ansaari muhaajiriin xilka qaba lagu yiri Uthman waa ka shahiiday la dilay xogaa intii hore waa ka yara meermeeristay asigoo ka baqaya mas'uuliyadda weyn ee la saarayo ma ahayn fuliinimo laakiin waa ilaahay buu uga cabsoonay subhanahu wa ta'ala sidaas uu marka dambe ku aqbalay Ali bin Abi Talib waxa uu ahaa nin nabi عليه الصلاه والسلام aad u amaanay oo ku yiri xataa waxaad la mid tahay sidii manziladii nabi Haaruun oo nabi Muuse la ahaa مدينة أو كجسيت الدجال والنبي محمد بحي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب فوائد أيوه خير كأو إسلام كأو قبته وحكم ذا إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجوب بشارة النظر
waxuu ka mid ahaa dadkii iyagoo adduunka guudkiisa dul socda uu nebi maxamed sala allahu calayh wasalam ugu bishaareeyey jannada kuna dhintay si shahiida lana dilay. haddii aan soo gabagabayno awaakhiru cumrihii inta ugu dambeysa noloshiisa waxa uu ahaa salaada subax buu usoo baxay, waxa uu tukanayay salaad subax buu rabay inuu muslimiinta tujiyo 21 bishii ramadaan bay ahayd sida culimada qaar yidhaahaan. marka waxaa dilay nin kuwan ka mid ah khawaarijta iyo dadkan ilaahay subxaana watacaala ku imtixaamay dhiigga muslimiinta. asxaabigii buu dilay cali bin abi daalibna saasay noloshiisu ku dhammaatay. ilahay waxaan ka baryaya subxaana watacaala asiga iyo dhammaan asxaabta muslimiinta kuwii jannada ku kulma inuu ilaahay naga dhigo. waxaan kusoo gabagabaynayaa hadal yaroo dardaarama naftaydii nafaha dhammaan walaalaha iyo kuwa daawan doona insha allah ku socda aynu ku dayno raggii hore ee ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa ku ammaanay ee asxaabta rasuulka ahaa sala allahu calayhi wasalam. guusha adduuniya mid aakhiraaba ku jirta. marka insha allahu tacala intaasaan kusoo gabagabaynaya. asalaamu calaykum waraxmat ullah. يا من أرسيت مراسينا وبعثت بنورك ياسينا أيلوذ بغيرك عاصينا لك يا الله. قد حل وباء أرقنا ورفعنا الأمر لخالقنا فهنا وهناك يلاحقنا فدعونا الله. يتلاشى الهم وينحصر ومخالب تقوى وتنكسر والفرج سيأتي